bilowgeedii 2002 bishii March 10keedii aan bilownay aasaasidda shirkadda Hormuud kuna aasaasnay in yar oo kooban oo isu tag shirkadeed ah gaaraya 283 shareholder ama shariik oo ku shirka ah shirkadda Hormuud. marxaladii la soo maray 1995 waxaan ahayn magaalo kala go'an runtii marketka wuxuu ka furnaa Bakaaro shaqada waxa loo aadi jiray Bakaaro subaxdii si loo baxo habeenadii la imaan jiray mana jirin wax oo yani xiriir isgaarsiineed xilligaas ma aysan jirin waagoro leelanka waxa uu horta main importance oo dadka ay haystaan oo qofka haysto la yaabi jiray intaan mobilka imaan marka waxay u isticmaali jireen ilaahay ku misamidiido sida hamkaad mobilka dadka guriga waa kaga wanaagsan markii loo gaaro hatta hadii liida dadka maanta hal la geliyo haduu yiraahdo hadaan loo gelin lacagteedii waa qaadaha u dhigay aan ku bilownay ilaa 16 xarumood inaan ku bilowno oo ay ka shaqo gasho waxaan ku shaqaynaynay wax la yiraahdo ku bilownay landline iyo mobile la dhigi analog kadibna ay noqotay in shaqaalo badan uu ka faa'iideysto dadka deegaankana ay fahamkoodu yaray ay ka cabsan jireen dadka qaar mobilada dadka wata markii dambe ay barteen ay noqotay in qolal arkay maalin walba shirkadda yimaadeen waxaan rabnaa mataqaanaa in la geeyo meel hablaayo boosasaan diyaar u nahay inaan shirkadda ku caawinaan rabnaa lacag kama rabno waxaan rabnaa in la geeyo dadka markay barteen kadib markii dadkii dibadda jiray ay ku soo xirantay ay dadkooda arkeen qof la arkay gurigeeda kala hadashay baahidii dadweynuhu ay barteen in isgaarsiintu ay tahay wax muhiim ah dagaalada ay ragaadiyeen waxaa noogu xigtay landline xaafadaha la geliyo oo iyadana halkii guri uu ku jiro la isugu yimaado oo leeyahay heblo ama hebelow cunugaaga yaa ku soo wacay imo telefoona ku yaal intaas kadib mahad ballaaran Hormuud haddana waxay noo keentay adeega GSM oo aan mobile gacantaada aad ku wadato meel kasta oo aad magaalada ka joogto aad kula xiriiri karto aniga waxaan ahay nin reer baadiye ah waxaan ka adeegtaa ilaa degmada Mahadlay ilaa Xamar adeega u baahdo iyo wixii laga baahdo waxaan daqiiqada ku heli karaa oo ku fusho karaa daqiiqado anoon gaari raacin anoon qof adeeg u dirin anoon cariiri marin hal doolar ku shubaa teleefankayga duntaan raban ku ooftaa oo waqtiga hore bila qaada jirta bilo lacagteena kaashi ahayd waa qaadi jirnay meelaan geey jirnay waa sarfi jirnay waxaan ku bixi jirnay lacag ku xabili jirnay lacaga lagu ilaalin jiray alxamdulillah al shukr hadda waxaan noo fududeysay ifi balaaska lacagteena ifi aan ku qaadanaa gobolada meelo dheer ka adeeganaa lacagana laga adeegtaana lagu soo tuuraa dhalashadii adeega EFC Plus wuxuu ahaa mid kooban oo systemkiisuna uu yar yahay markii hore wuxuu ku bilowday ilaa 9,000 oo transaction maalinkii asagoo maalinta ka dambeeyay soo kordhayay muddo gaaban gudaheed markaan aragnay sida ay ula qabsadeen macaamiisha adeegii ayadoo maalinta ka dambeysay ay soo kordhisay isticmaalka una gaaray maalinkii ilaa 1 milyan oo transaction shaqaalaha AFC la u dirnaa kan oo shidaalka AFC aan u dirnaa kan oo kunshiimada AFC aan u dirnaa kan qudaarta kan beerta falaasoo beerta joo adoo degmada afgooy amal iska joogaas ku soo wici karaa meesha uu tuuray lacagtiisa isxayiraad wax la ma jiro Hormuud ayaa horumar weyn bulshada gaarsiisay ka bangi salaam ahaan waxaan ka faa'iideysanay oo aad la isku xiray adeega EFC Plus iyo adeega deeqtoon kaasoo u fuudeeyay bulshada Soomaaliyeed oo bangiga u adeegayay inay ka faa'iideystaan adeegaas qiimaha badan oo ay isticmaalaan waqti kasta u baahdaan akoonkooda ayagoo ka soo gelayo dhinaca EFC ka bacdina lacagtooda kala soo baxaya akoonka isla markaana ku dukaameysanayo waqti walba iyo goob kasta Soomaaliya ka joogan maamulka shirkadda runtii wuxuu dhigtay target oo dhigtay waxyaabaha xasuusto oo lagu boorin jiray waxaa ka mid ah annaga waxaan rabnaa targetkeena inuu 10 qof oo Soomaaliya meeshii joogto inaan isgaarsiino runtiina waxa waa ilaahay waa noo suurtageliyay maanta
waxaana kaloo jiray shirkadda inay marka horeba setgaraysay iyadoo og in ciladaha iyo dhibaatooyinka jira waddanka inay wax walba ay ugu tala gashay inay lahaadaan wax bedeli karo ama redundance waana u badan tahay speedka waay maxaa speedka ayaa mar walba loo baahdaa in kii hore mid ka sarreeyo in la helo iyo demandka oo aada u badanayo qofkii 2G waa runtii waaye level wuxuu leeyahay oo maxaa ku qaban kartaa 2G oo limitation uu leeyahay ilaa heerka aad wax ku qaban karto 3G yimid sidoo kale asna limitation kale uu leeyahay oo ilaa heer ayuu wax qaban karaa 4G sida waxaas arkaysaan oo technology-gaas bedelayo waxa loo socdo waxa waa speedka in la badiyo